Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ninkii la dhahayay Firimbi, Xasan Firimbi ayaan rabaa inaan ka hadlo oo maalinkii dhawed askariga ay isku dhaceen feeray. Waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo odayaashii dhahay Xasan ra-iisul wasaare na siiyey. Xasan baa soo dhaweysayna daaradu wax iskuma nihin. Waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo odayaashii runta u sheegay absame Xasan inuusan wax siine kursiga ra-iisul wasaaraha 4.5 inuu ahaa sheegay ayaan rabaa inaan ka hadlo. Haddaad nagu cusubtihiin subscribe-ka noo saara, haddaa hore noo joogtiin waa ku mahadsantihiin. Barnaamijka like-ta noo saara. Haddaan kusii socdo, xildhibaankii Xasan Firimbi maalinkii dhaweyd waad ogeydeen waxaa xildhibaanada dhexdooda ka dhacay dagaal. Markii dagaal dhacana askar baa la soo gashaayo, buuq markuu dhaco askar baa la soo gashaa xildhibaanada ay wax ku dhuftaan. Xasan Firimbi askarigii buu iska ceshay. Askarigii waxbaa gaaraa la yiri, isbitaalka la geeyey. Nin la yiraahdo Asad Diyaano oo horgal ka soo jeeda Puntland, ninkaas oo booliiska loo dhiibay ayaa wuxuu ugu tagay askarigii isbitaalkii asoo faashaday wax lagu duuduubay oo dhaawac khatar inuu gaaray laga dhigayo ayaa lasoo sawiray. Saasaa fideogii lagu gashay caalamka. Kadib subaxii waxaa soo baxday ninkii askariga ahaayee waa la dilay la dhahayay isagoo labisan oo diyaarsan oo shahaado sharaf la siinayo oo wax gaarayba kii wax gaaroo la sheegaya aan ahayn. Sheekaas been ayay u badneyd. Horta xildhibaanka qasab waa loo gacan qaaday, isagana waa isdifaacay. Askartana markii xildhibaanadu ay mooshin diidaan askartaa lagu fasaxaa oo wax gaarsiisa. Marka ninku dilaya inaad iska qabatidna dee dhiig la-aan maaha. Anigu waxaan leeyahay Firimbi in aad ka hadashid oo ka doodid sharcigan xaq baa u leedahay. inaad Jubbaland u hadashidna xaq baa u leedahay, waana ku mahadsan tahay. Ninkii Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sameeyey ciidamo cidiisa ayuu u diray Xasan Firimbi, hala soo qabtaali hala dila haliyiri. Xasan Firimbi wuu ogaaday, wuxuu u tegay madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed gurigiisuu tegay, isagoo mangalyo gurigiisa u galay. Waa loo geli waayey. Sheekh Shariif ayaa hadlay. hadaladiis waxaa ka mid ahaa sida tan, dhegeysi wacan. waxaa la sheegay maanta xildhibaano badan in liiskooda la geeyay laboorkooda ma dhoofi karaan. annaga dee hadda maxkamaddii maahin, xeer ilaalin maahin, laakiin in gacan qaad uu ka dhaco annaga waxaan aaminsannahay arrin khalada inay tahay, inay dembi tahay. haddana weyga loo waajahayo arrintaas waa inay ahaataa wey sharci ah, inay ahaato sida wax u dhaceen. annaga xildhibaanka waa aragnay, wuxuu dhahay videoga waa la jarjaray. allahu yaclam, aniga meesha ma joogi. ka horreysay u dhaha gacan qaad kale. hadday gacan qaad iyo gacan qaad dhacaan xildhibaanaduna mar walba waa cabtaan, waxay dhahaan askartu mararka qaar waana dhibaataysaa, xildhibaanaduna waa is dhibaateeyaan. waxaan hadda baarlamaanka ka dhacay wax cusub miya mase wax hore u dhici jira waa ka dhacan baarlamaanka ka dhacan. waxay u baahan tahay weyga loo xalinayo wey nadiifa, qof difaacaya aniga ma arkin in gacan qaad oo dhaco. macal xildhibaankii oo ka dhacay arrintaasay ka dhacday ma ogola, wuxuu aaminsan inuu khalday, laakiin se Sheekh Shariif wuxuu sheegay ciidanka dowladda iyo hubka dowladda in macnihii dadka loo adeegsado inaysan fiicneen. waxaan maqlay buu yiri in xataa Puntland iyo Jubbaland xildhibaanada ka soo jeeda
iska dhoofi karin elaboorka dowladduna ay hooshaa ka dambeyso waaba afduub. dowladdu waxay wadataa keliya inta laaluushka qaata oo horgallada ah, intaa keliya rabtaa asadiyaano iyo wixii lamid ah. inta kale ee dhiiggii uuska leh waxaa la yiri Jubbaland ma aadi karaan, Puntland ma aadi karaan. waa sheeko cusub, waa afduub. waxaa la yiri waa in la xirxiro, waa in la dhibaateeyo. horta qofkii jaahil doorta, jaahil waxa laga sugaa waxa weeye waxaan la garanayn baa laga sugaa. qofka aad dooranayso wejigiisa la fiirshaa. doqon hadduu yahay dhabankiisa ku qoran tahay, hadduu dad yahayna wejigiisa ku qoran tahay. xasan sheekh maxamed waxaa doortay 2 nin oo ilmo adeer ah, waxayna ugu hiiliyeen in adeerkood xabiib malaayiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayay ugu hiiliyeen. xasan sheekh bay u hiiliyeen farmaajo intay ka tageen, ayagoo qabiilusu ku jirin. laakiin xasan waxa weeye wax loo hiiliya ma aheene dee ayagiiba wax u fiirshay daarad ahaan. waad ogeydeen Puntland wuxuu yiri doorasho qof cod kama dhacayso, dagaal ha ridaan, dad buu lacag ku siiyey, waa la denshay. haddana Axmed Madow wuxuu yiri xasan waxaa wadiyeeli mayo 10 bilood kuma darsanaya, doorashaan qabanaya qof cod aan ahayn. doorashuu qabsaday, isagana waxaa lagula diriray. see u qabsan kartaa ayaa lagula diriray. ciidamo badan ayuu wuxuu geeyey raas Kamboni. ciidamadaasoo weliba la yiri afkooda ka sheegay in la yiri Baldoogland in Kenya, kadibna raas Kamboni la geeyey. saasay sheegeen, walow been ay u eg tahay. waxaa la yiri Axmedow weerar ku qaada. marka xasan sheekh maxamed ciidamadii iyo lacagtii dalka iyo waxay hay-aduhu bixinayeen kulli wuxuu u adeegsanayaa ninkaas Axmedow leeyahay meesha ka tuur. wuxuuna taagan yahay Kismaayo hawiye iska leh, halkaasuu taagan yahay. marxuumka na waa la shaqeynayaa. marxuumka wuxuuba u qabaa in kursiga xasan siiyey, maba uu oga inuu daarood ku joogo iyo 4.5 inuu ku joogo, maba ogaba. waa nin aan geerida nebiga aan ka warqabin. intaa markaan uga baxo waxaan rabaa inaan ka hadlo nimankii yiri daarood wax iskuma nihiin ee odayaasha sheeganayay. waxaa la yiri waa nin xamse la dhashay iyo nin kaloo wax isku yihiin. waxay leeyihiin daarood wax iskuma nihiin. xasan waa mahadcelinaynaa, kursi ra-iisul wasaaruhuna siiyey, saasay dheheen. marka waxaan rabaa inaan nimankaa tusaan rabaa. bal odayaashan dhegeysta. doofaarka ficil xumaa loo cadaabayay. odayaashan dhegeysta. Jubbaland inay eri tahay iyo inay daarata inagu heshiin waxaan rabnaa inuu erin inayna qabto oo weli gaaljacal qabtaan rabnaa anaga. runtaa ku sheeg gaaljacal fadhiga ka kacan kulay. shiiqaan shalay waxaa leedahay anaa waddankan majority ka ah landheere ka ah waa ku fajirta halkaas fadhiisa gaaljacal ku fel. annagaa garabka u siinay. annagu daarad uma dirin waa walaalay xisaab alla ka jirta. midna nabadjirta koronto jinku xisaabteedaan qaadanayna. waxaad xaq u leedahay kaata waxaan xaq u leedahay qaadanayna. haddaan intii madaxweyne ka noqon lahaa oo annaga haddaan beelaha erina maxaan wadanaa musharax madaxweyne gaaljacale war madaxweynaha Jubbaland yaa iskale Axmed Madow waa daaro. ninka la yiraahdo Cabdirashiid Jalna waa nin daaro. wuxuu yiri Kismaayo mar waa inuu madaxweyne ka noqdaa. erer Soomaali mar waa inuu ka noqdaa daarood. micnihii waxaa loo dalnayay waxaa weeye
kismaayo in daarood laga sifeeyo. odayaasha dhahaya xasan baa kursina siiyey, waxaa la rabaa in dhulkaa aad degaysay ogaadeen keliya ma degee, waxaa dega majarteen, waxaa dega oortoble, cid walbaa degtaa. dhulkii aad degneed baa waxaa la rabaa in gaaljecel madaxweyne looga dhigo, adigana lagu yidhahdo meelaa ka timaada garan mayno, ra-iisul wasaare dambena heli maysid. haye xamse marxuumna waxaa laga saxiixa awal ninkii ogaadeenoo jooga gaariso iyo ninkii jooga DBS inuusan soomaali ahayn. markuu soomaali yimaado xamarna uusan sharci la siineyn, marka ugu dambeysana la siinayo baasaboor deganaansho oo codayn karuusan madaxweyne noqon karin. marka odayaashaas waxaan leeyahay waa layni wareeriyey xamsena dee dhiiqadoo lagu halagalay nin imaan leh maahe, dhiiqadii ayuu idin gashay. istakfirullah ayaa waajib idin ku ah. waxaan rabaa inaan u gudbo odayaashaas absame ee koomade ee khaladkaa ku hadlay, saasaan leeyahay. waxaan rabaa inaan u gudbo odayaashan kale absame ee koomade. waxaan rabaa inaan hadalkooda idin maqashiyo. waa niman dhigii uusu leh, garanaya jambalka xasan uu tuurayo iyo daaro suu rabo inuu ka yeelo iskugu dhufto. hadaladooda ila dhegeysi wacan. waxaan maqlay odayaal waxaa xasan sheekh waxbay nama siin innaga Soomaalidu wax ku qaybsay wax la yiraahdo 4.5. cid kasta oo kamid ah ra'iisul wasaare wuxuu noqon lahaa qabiilada daarood mid kamid ah inuu ogaadeen noqdo ama absama noqdo ama kuumada noqdo wax dhiba uma arko. laakiin waa inuu yahay nin og majarteen iyo mareexaan iyo magaca daarood ku yimid. xasan sheekh annaga wax nama siin karo, uga dhigmayno ama dadka iyaga inuu dhibaateeyo ugu habran mayno. ra'iisul wasaare uu siiyay qaada adeer ra'iisul wasaare xasan oo adigu haddii aanan ku helin xuquuqda. waxaa kaloo gaf ah oo aan ka raali gelinayaa beesha daarood in la yiraahdo dadkii cadawga ahaa shalay wax nagu daarood cadow nooma ah, waa dad aan wada dhalanay. sidaa daraadeed arrintaana waan ka raali gelinayaa ciddii daarood ahayd. waxba annaga xasan sheekh nama siinin. Soomaalidu waxay qaybsatay ayuu maray. hadduu majarteen noqdo iyo hadduu mareexaan noqdo iyo hadduu noqdo kuumada waa isku mid. waxay dhaheen kursigan hadduu ogaadeen noqdo iyo hadduu noqdo majarteen iyo hadduu mareexaan ra-iisul wasaarahaas kursigan ciddii hesha ogaadeen hadday helaan majarteen, hadday helaan mareexaan waa isku kamid. waxay dhaheen on isku kamid waa 4.5. xasan wuxuuna siiyey ma laha, abgaalna ma siin kursigan, waa wax lagu qaybsaday. marka xasan abaal uguma hayno. saasay dhaheen. ra-iisul wasaarahana hadda horta daarood doqon marmar buu doqon ka dhashaa. doqon hadduu ka dhasho doqonkaa meel loo raaco lama helo, horey baa loo sheegay. xamse anu waxaan leeyahay niyahow noloshaad ku urtay. waxaad dhihi jirtay awal baan kaa yaabay, waxaad dhihi jirtay mid baa kaco ororday, waxaasaa cararay. inaad meel ka nasaqan tahay waa iska muuqatay. niyo kursiga iska casil. xasanna riyadiisa uu isleeyahay kismaayo daarood ma lahaad leedahay baa dhihi doontaa. daarood ma laha kismaayo baa dhihi doontaa. riyadaas uu isleeyahay. waxaan leeyahay xasanow waa calacashaasoo timo kasoo baxeen. wallaahi intaa kismaayo aada daarood ka saarta adaa adigu degeyn, laakiinse soomaalida aariskaga dhigtaa. imaaraadkaa yaqaana sida daamanka lagaaga soo garaaco. sidaan u malaynayana wax badan baa qarsanaysaa oo ilaahay og yahay. afka inay kaaga soo xaareen baan u malaynayaa. afka xataa in lagaga soo xaaraan u malaynayaa. maxaa yeelay imaaraadku sayid axmed maxamed islaam waa tagaa, nabad buu uga soo laabtaa, cidna daaman kama soo garaacdo. madaxweyne siciid qurux waa tagaa, cidna daaman kama soo garaacdo.
adiga wax daaminka lagaaga soo garaacayo oo aad u bahdilan tahay ayaad xasan u qabtaa. nin cuqbo qabana waa tahay, dhiig muslimna waa qabtaa. dee qabuurayaashiina dadkii intaad aakhiro uga daba tagtay yaa intaad ka soo saartay oo dhulkii gadatayba haddana waxaad tiri meyd walba $30 meyd walba ha laga qaado. waa dad 5 sano aasan ay 10 sano iyo 40 sano ba haddana lafoodii $30 lagaa siiyey. marka xasano inaad nolosha isku duugtid, nolosha inaad isku duugtaa fiican. meel walba aad tegtid madaxweynayaasha Afrika kulligood kuma sharfan. waxay u jeedaan inaad tahay ayax baahaysan, qof la sharfan aada ahayn, madaxweynena aada u ekeen, meel un aad ka dulaysan tahay. barnaamijka kaasaan u baxaya. daawashadiina ku mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.